السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن دمان داودياشا qiimaha sharafta loo dilahantiin ba ku soo dhawaada barnaamijkeena maalinlaha ah ee ku saabsanaa ciyaaraha. Fadlan haddii aad nagu cusubtahay YouTube-keena subscribe saar si share garay oo asxaabtaada la wadaag si dad badan noogu soo biiraan. Mahadsanid. Athletic Madrid iyo Chelsea ayaa qarka u saaran inay heshiis ka gaaraan Conor Gallagher kadib wada hadallo socday 24 saac ee la soo dhaafay. Waxay ku wada heshiiyeen oo la isku raacay 35 ilaa 40 milyan. sidaasi waxaa qoray wariyaha ciyaaraha ka faallooda ee Fabrizio Romano. Julian Alvarez ayaa mar kale ka hadlay mustaqbalkiisa wuxuuna yiri waan arkay Pep oo ka hadlaya arrimahaasi ma oran anigu wax xun ama caadi ah mar walba waxaan dhihi jiray waan ku faraxsanahay Man City laakiin saameynta dheelitirka xaaladda kadib xilli ciyaareed kasta waa wax iska caadi ah. AS Roma ayaa kalsooni ku qabtay inay nalka cagaaran ka hesho Girona kadib markii uu sheegay inuu kooxda doonayo kaliya inuu ka tago oo uu ku biiro kooxda Roma. Agaasimaha Roma Giasolfi ayaa la filayaa inuu u laabto Italy iyadoo Dovbek oo diyaar u yahay inuu saxiixo heshiis 5 sano ah. Pascal Gross ayaa ku sii socda tijaabada caafimaadka si uu u saxiixo 2 sano oo heshiis ah ilaa 1 sano oo dooq ah 2027 ee uu u saxiixayo kooxda Borussia Dortmund. Brighton waxay helaysaa 7 milyan oo lagu daray waxyaabo kale sida shaaca laga qaaday. Waxaa xigi doonta Jan Kuto markay dhameystiraan saxiixa Pascal Gross. Kadib Chido Obi Martin, Man United ayaa sidoo kale ogolaatay heshiis ay kula soo saxiixanayso Samuel Lusale oo Crystal Palace ah kuna biiraya akademiyadda. 16 jirkan garabka ka ciyaara ayaa qarka u saaran inuu u dhaqaaqo Man United. daawadayaal maanta halkaas ayuu inooga egyahay barnaamijkeena maalinlaha ah ee kubadda cagta. fadlan haddii aad nagu cusub tahay YouTube-keena subscribe saar siina share garay oo asxaabtaada la wadaag. Mahadsanid.